kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadkii geeska Afrika oo anigoo Cabdirasaaq Socoto Warsan TV studioga London. barnaamijka toddobaadkii geeska Afrika ayaynu inta badan ku soo qaadanaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gobolada ku yaala bariga Afrika iyo waxyaabaha ka soo cusboonaada. waxyaabahan toddobaadkan idinku haynana waxaa ka mid ah eedeymo tiro badan oo isdaba joog ah oo horey loogu haystay maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa ka dhiidhiyay dad badan oo Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Puntland oo degan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi kuwaas oo qabtay shir ay kaga soo horjeedaan ku soo saareen bayaan cad. ciidamo hor leh oo dheeraad ah oo ka socda ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa soo gaaray mar kale magaalada Muqdisho. bambaanooyin lala beegsaday ciidamada Ugandaiska ee horey ugu sugnaa magaalada Muqdisho. 8 qof oo Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Soomaali Galbeed ayaa ay dawladda Itoobiya ku xukuntay dil toogasho ah. si kastaba haatee waxaa jira eedeymo isdaba taagan oo loo haystay maamul goboleedka Puntland kuwaas oo ah eedeymo ah in ay maamulka Puntland ay gudbiyeen dad Soomaali ah oo ka soo jeeda gobolka Soomaali Galbeed kuwaas oo ay gacanta u geliyeen Milah Sanawi dawladda uu madaxda ka yahay. arrintan ayaa waxaa ka dhiidhiyay waxgarad aqoon-yahano iyo ganacsato ku nool dalka Kenya halkaas oo ay ku qabteen shir magaalada Nairobi. shirkaasi oo ay kaga hadlayeen sida ay kaga xun yihiin isla markaana ay ku soo saareen bayaan cad oo ay u gudbiyeen maamulka gobolka Puntland. waxaa warbixin dheeraad ah oo arrintaas ku saabsan noo soo diray wariyahayaga jooga magaalada Nairobi Saciid Umar. kulanka ay yeesheen maanta aqoon-yahanada waxgaradka culimo diinka ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi kana soo jeeda maamul goboleedka Puntland ayaa si weyn loogu lafagoray xubnihii shacabka Soomaalida ogaadeen iyo dadkii muruqmaalka ahaa ee loo gacan geliyay xukuumadda Itoobiya. dhammaan xubnaha ka soo qayb galay kulankaasi ayaa cambaareen dusha kaga tuuray maamul goboleedka Puntland ayadoo halkaasi ugu horeyn ka hadlay mid ka mid ah aqoon-yahanada maamul goboleedka Puntland. وعدينا دم الحمرة أنت يدين أنت أي فوق كعين شخصيات حضور كسر جرا بوتلان وكتر سمام في بوتلان أنا كنت عند اليوم بدور عليها أنا وأولادين كسر جرا أولادين وسياسيين وضد مجالس شخصيات كشري سنة يلها وواحد بيقولوا عيليين أي سيبسين إلا أنا ديوان قويستها يعني فئة كفاشهم أو كورة دول كورة ديموية يعني أنت أصابتك لي أو وقفتي أو يوقع لي عدو أنت طهي وحنا نشيرين بدك أنك السوشيال وقول كاسكو أبتكسبه يعني أنت هو سود وين يسا دول يجري أو بدك أسود وقادنا هيين إيه سكتوران أردت أن أحوى مقصود هاي فعل كذا مبشر يكون رئيسي أو أن يوكي بقوليال كا كويس شيء المقدشة بدك يدور يتواصل معك عبر كوريين يدورني إيه يوجد بين بدك شخصيات كأيكي يعني على ولا مركز بدك بلادوي أو سكتوران هدية لما كان ماشي بالدبي وين يومين يعني تيلا وادوي وحوايج بدك نقصوا شيء inay hadda ay dhaaftay waqtigii la sidoo qaaday jiray. dood iyo falanqeer dheer kadib ayaa gabagabadii kulankaasi laga soo saaray baq ka kooban 6 qodob kaasoo halkaasi uu ka akhriyay Jaamac Ismaaciil Cilmi oo ka mid ah waxgaradka beelaha Puntland. waxaan si wada dheer u cambaaraynaa farka gurracaan ee foosho xumaa ayna madaxda Puntland ugu gacan geliyeen cadawga Itoobiya Soomaaliyeed oo ay naga dhaxaysa diin dal wada dhalasho iyo xiriir sokeeye iyo ganacsiyeentaba. labo waxaan si gaar ah u dhaleecaynaa dadkii sida gaarka uga dambeeyay falkan waxaan uga digaynaa guud ahaan dadka falkaas xun ku shaqaynaya inay ka waantoobaan arrintaas haddii kale shacabka reer Puntland uma dulqaadan doonaan waana lala xisaabtami doonaa maalmaha ka mid ah. waxaan ku sheegaynaa walaalaheena sida gaarka dhibaatada loogu geystay in aanan raalli ka ahayn haddaan dadka reer Puntland falkaas foosho xun
isla markaasna ay falkaasi samayntiisa ku kooban tahay shakhsiyaad caadaystay gadashada dhiigga shacabka soomaaliyeed kuwaasoo doonaya inay isku diraan ummadda soomaaliyeed ee walaalaha ah iyagoo fulinaya dano gumaysi weji iyo masabna kaga raadsanaya. qodobka afraad waxaan sidaa darteed ugu baaqaynaa labada shacab ee walaalaha inay dhowraan nabadda iyo wada noolaanshaha islamarkaasna fahmaan ujeedooyinka iyo qorshayaasha gumaysiga ee ah in la isku dhufto shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ah si ay u hirgalaan ujeedooyinkiisa. kulankan maanta ay yeesheen aqoon-yahanada culimaa u diinka ganacsatada waxgaradka beelaha Puntland ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayna cambaareen oga dhigeen firqii ka dhacay maamul goboleedka Puntland ay ka soo saareen baaq taasoo fariin ay uga dhigeen maamul goboleedka Puntland si ay wax uga bedelaan sida wax u wadaan. Saciid Cumar, Toddobaadkii Geeska Afrika, Warsan TV, Nairobi, Kenya.